الرحمن الرحيم waxa weeye xalayto la warban soo saarnay war saxaafadeed kulay qoraal ahaan baan ku soo saarnay dabadna waxa ka soo noqday in yani dadku qaar ay been moodaan in war sugan aanu hayn waxa ay xaqiijinayaa in warkaasi war sugan yahay una xaqiiq yahay kulay anagu kooxahan sharciyo nidaam baan leenahay waan istooranaa xilka waan iska qaadnaa waana wax kulay caadiya oo mas'uul kasta maalin baa xilka loo doortaa maalin waa laga qaadaa soo kale waxaan idin faahfaahinayaa kooxda waxay leedahay sharci aan inteedani ku wada dhaqano xidiga geeskii waxaan leedahay gudoomiye ku xigeen xoog haye waxay leedahay guddi marka waxa loo sameeyaa qofka marka xilka haddii muddada ay ka buuxsanto na dubba loogu shir lagu qabtaa loogu codeeyaa ama dub loo doortaa ama laga qaadaa oo la bedelaa haddii intaa xilka qofka muddada uu hayo wax ku yimaadaan dhaawac ama adoo magaranaysaa shaqada gudasho la'aan ama madmadow ku yimaado adoo wax ku yimaadaan oo qofkii loo garan waayo in iyadoon lagu degdegin si fiican baa loo soo baadhay guddida iyo ay magaranaysaa daba gasho si fiican usoo baadha marka qofka si sharaf loo fiican ba go-aan lagu gaadho go-aankana kooxda ayaa marka dambe iska loo waa loo gacan taagaa marka intaasaan idin cadaynayaa maanta waayo alfanaan ciro si weyn ayaa kooxdiina loo taageeraa oo ilaa geeska afrika ilaa iyo dee caalam oo dhan dadkana arrintani aad bay moogtay hadalhaynteedu usoo noqnoqotay 2 iyo 3 bal hadda u yar kala sheeg dadka sababta rasmiga ah ay gudoomiyihiinii aad ku qoorsateen horta wax colaadii ma jirto xilka wala wani kuri waa la bedelaa kulay kooxduna wixii gudaheeda badriyo wixii lagu bedelayo wax gudahayaga oo xilka waa la isbedelaa ummadana marka hore maadaama aan ummadda marka hore u sheegnay gudoomiyahayga iyo guddo ku-xigeenkayga iyo maamulkayga waan baahinaa taasun baa keentay inaanu imika baahino dadka haddana u sheegnay gudoomiyaha inaanu bedelnay laakiin ka hor dhici maayo wareegtada maan kule kasoo saari doonaa oo haddii ilaahay dhahdo odhan maayo sababa faahfaahin caynkaas sii dhexgeli maayo laakiin inaanu bedelnay oo gudoomiye hore aan bedelnay anigana kooxda ay dooratay kusimaha kumeel gaarka ee gudoomiyaha inta la soo dooran doono shirweyne dambe u dhici doono insha Allah billahi karim gudoomiye su'aal baa qaba waxa sheegayaan in khilaafkan gudoomiyaha uu qaaday inuu kamay waqtigii uu socday kooxdu ay laba garab u kala jabtay xisbiyada in la saftaan arrimaha ma waqtigaas baa la oran karay khilaafku uu curtay isagoo wax weeye garashay mashruucii waqtiga gaadhay gudoomiyaha xilka dhamaaday maya horta kooxdu laba qaybood ma kala jabin waxa weeye kooxdu way shaqeynaysay waana kala shaqo tagtay xisbiyada qarankana in loo wada heeso waa mid cadaalad ahayd intii markii wadani u haysayna cadaalad kooxdu ka tirsantay markana way ka tirsantay wax khilaaf oo ka yimid ma jiro intii kulmiyo haysay intii ciidaysay waa isla mid waa isla kooxdii waa la shaqeynayay xisbiyada qarankana waa loo wada heesayay taas wax khilaaf oo ka yimid ma jiro laakiin gudoomiyaha amdadiisina may gaadhin laakiin sababo kale awgood oo kooxda u gaara oo xil gudasho la'aana ayaan gudoomiyaha xilka ka qaadnay ugu dambeyntii waayo gudoomiye su-aasha noogu dambaysa kooxda xidigaha geeska waa koox aad dadku u taageersan yihiin dadkiina warwar badan baa taageerayaashiina haya oo leeyahay ayagiibaa muddooyinka u dambeeyey haya kooxda miyay baaba'aysa arrimahaasoo dhan dadka warwarkaasi hayo maxaad fariin u diraysaa bismillahi raxmaan raxiim dadka waxaan leeyahay horta kulli kooxda baabi mayso waa koox nidaam iyo sharci iyo dastuur leh sababtan aan isku bedelayna waa cadaalad hadda ka hor waan isbedelnay haddana waan istooranay waxba may baabino kooxdoodii sii jirtay taasna waxay la mid tahay sidii hore in haddana gudoomiye la doorto gudoomiyena laga qaado xilka waa caadi taageerayaashana waxaan leeyahay kooxdu way jiraysaa waanay joogaysaa weligeed waxna kama xuma khilaafna ma jiro taasaan ugu bushaareynaya taageerayaasha kooxda waxa jirta warar sheegaya in mar labaad gudoomiyaha kooxda lagu socdo fanaaniintii uu geeyay iyo macnaha Soomaaliya lagu daba ku soo foolay sida barnaamijka lagu faafiyay طبعا dadka ka mid saara maxaa ka jira horta horta waxaa jirta kooxdu ciddii laga saarayo kooxda ka saarta
oo sida sharciya lagaga saaraa marka lagu soo darayana kooxdan baa ka shirta shirkaa lagu soo darayana weli shir qabsoomay oo dhacay maaha asxaabteydaasna weli horta nimcaan u imanayaa waa wadankiisii kooxduna horta mar haddii qofka laga saaro dad kala tegin mayno dad meel kusoo wada koro wax wada lee baanu nahayn ma kala tagno laakiin sharciga kooxdan qofka dabadda ka noqdaa hadday kusoo noqonayaanna